السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu qaadanaa mixed fraction ama mixed number. mixed fraction ama mixed number waxaa la yiraahdaa tiro whole number ah ama tiro caadi ah iyo tiro ama fraction improper fraction ah. aan qaadana tusaalooyin ku saabsan mixed number ama mixed fraction. tusaalaha koowaad waa hal laba loo qaybi saddex. in mixed fraction kan ama mixed number kan waxaan u qori karnaa hal lagu daray labo loo qaybiyey saddex. habkaas ayaan u qori karnaa. tusaalaha labaad waa saddex lix loo qaybiyey sideed. saddex waa tiro whole number ah, lix loo qaybiyey sideedna fraction. waxaan u qori karnaa saddex balaas lix loo qaybiyey sideed. habkan iyo habkan waa isku mid, waa tiro mixed number ah oo mixed fraction ah. waxaan qori karnaa saddex balaas lix loo qaybiyey sideed. tusaalaha saddexaad waa labo toddobo loo qaybiyey toban. waxaan qori karnaa labo lagu daray toddobo loo qaybiyey toban. aan ku celina mar labaad, labo balaas toddobo loo qaybiyey toban. habkan iyo habkan waa isku mid. aan qaadano changing improper fraction to mixed number. bedelida improper fraction tirada la yiraahdo ama fractionka la yiraahdo improper fraction loo bedelayo tiro mixed number ah. tusaalaha koowaad waa 25 loo qaybiyey saddex. waxaan u bedeli karnaa laba hab. tiran waa improper fraction, waxaan u bedeli karnaa mixed number, waxaana u bedeli karnaa laba hab. habka koowaad waxaan isticmaalaynaa calaamada u qaybida ama divisionka. waxaan dhahaynaa calaamada u qaybid 25 gudaha gasho, saddexana banaanka dhigo. kadib tiro markaas saddex lagu dhufto 25 keenayso ayaan raadinaynaa ama soo dhaweynayso. dabcan ma jirto haddaad tiro lagu dhufto 5, tiro haddaad saddex lagu dhufto 25 keenayso ma jirto, laakiin tu soo dhaweynaysa ayaa jirta. aan dhahana saddex lagu dhuftay 6 waa 18. saddex lagu dhuftay 7 waa 21. saddex lagu dhuftay 8 waa 24. 25 waa isku dhow yihiin. waxaan qaadanaa lambar 8. saddex lagu dhuftay 8 ayaan qaadanaa 8. 8 saddex ku dhufo waa 24. kadib 25 ka jar 24 waa hal. halka 8 iyo 3 ayaan waxaan u qoraynaa in mixed number. halka waxaan ka dhigaynaa koreeye, saddexna waxaan ka dhigaynaa hooseeye, halka 8 aan ka dhigayno horgale. tiro improper fraction bay ahayd, waxaan u bedelnay mixed number ama mixed fraction. waxay noqotay 8 lagu daray hal loo qaybiyey saddex. habka labaad aan u shaqeyn karno waa hab aad u fudud. waxaan sameynaynaa 25 ayaan waxaan u kala qaybinaynaa laba tiro, markaa isku darana ay noqonayso 25. saan u helna tiradaas waxaan sameynaynaa saddexda ayaan waxaan raadinaynaa markaa tiro lagu dhufto saddex, markaa tiro lagu dhufto keenaysa 25 ama soo dhaweynayso. ma jirto 23 markaa tiro lagu dhufto saddex markaa tiro lagu dhufto 25 keenayso, laakiin tu soo dhaweynaysa ayaa jirta. saddex 6 lagu dhuftay waa 28. saddex 7 lagu dhuftayna waa 21. saddex 8 lagu dhuftayna waa 24. waxaan qaadanaa 3 lagu dhuftay 8. waxaan dhahaynaa 24 loo qaybiyey saddex soo qaado balaas 25 ka jar 24 waa hal. hal loo qaybiyey mar labaad soo qaado saddexda. kadib saddex
hal saddex saddex u qaybi saddexna 24 u qaybi waa 8 waxaan dhahnaa marka 8 lagu daray halkan lama qoro hooseeya markuu yahay lagu daray saddex loo qaybiyey hal loo qaybi saddex soo qaado jawaabta hore iyo tusaalaha labaad waa 17 loo qaybiyey 6 waxaan oo shaqeynaa laba hab habka koowaad wuxuu ahaa 17 gudaha gasho 6na banaanka kadib waxaan raadinaa tiro markaa 6 17 keenayso ama soo dhaweynayso 6 laba ku dhufo waa 12 6 saddex ku dhufo waa 18 17 ayaa badan 18 marka waxaan sameynaa 6 lagu dhuftay labo 17 6 laba ku dhufo waa 12 17 ka jar 12 waa 5 shanta labada iyo 6da ayaa waxaan qoraynaa mixed number shanta waxaa ka dhigtaa koreeye 6na hooseeye ka dhigo labadana waxaa ka dhigtaa horgale habkaas waa habka koowaad habka labaad waxaan raadin 17 waxaan ka dhignaa laba tiro oo markaa isku daro noqonaysa 17 6 waxaan raadinaa 6 markaa tiro lagu dhufto keenaysa 17 ama soo dhaweynaysa ayaan raadinaa waa 6 laba ku dhufo 12 12 loo qaybiyey 6 ayaan dhahaynaa lagu daray 17 ka jar 12 waa 5 5 loo qaybiyey mar labaad 6 soo qaado kadib 6 u qaybi 6na 12 u qaybi waa 2 balaas soo qaado 5 loo qaybiyey 6 mixed numberkan waxay la mid tahay inay u qoran tahay oo kale 2 5 loo qaybiyey 6